horta xaaladan abaaraha in la iskugu jawaabo ma rabno anagu waxaan rabnaa maanta wixii nala gudboon ilaahay nagu ogyahay shacabkeena in loo gurmado la samata bixiyo si lilaahi taaba wax qabadka iyaga lagu qiimeynaya oraaho aan hawada isku marmarino dad maaragtay falkooda iyo ficilkooduba uu yahay inay dhaliilaan wax wanaagsanba abaartaasi dawladdu xilligii ku haboonaabay qayladaan samaysay diyaar garowgii loo baahnaana way samaysay deegaanka Soomaalida khayraad ka yaala iyo baahida taala ma siman yihiin ma sinno baahida ka badan marka taa iyadoo niyada lagu hayo anagu waxaan sameynaynaa wixii wax qabad ah ee lagu badbaadin karo bulshada tabaalaysan ee abaartu saameysay ayaan isku daynaa laakiin dadka siyaasadeynaya iyagu wixii danaha ay ka leeyihiin ha iska wataan caawa haddii uu dhulgariir dhaco hebel baa keenay baa la odhanaya wax iska caadi ah wey ma rabno dadka maxay yidhaahdeen soundigooda inaan mar walba falcelin ka sameyno laakiin bulshada Soomaalida maanta abaarta ku dhacday mid shakhsi oo sababay ama dawladii ay sababtay meher roobkii la sugayay baa meesha ka baxay cid walbana way ogtahay abaartaasi dawladdu xilligii ku haboonaabay qayladaan samaysay diyaar garowgii loo baahnaana way samaysay deegaanka Soomaalida khayraad ka yaala iyo baahida taala ma siman yihiin ma sinno baahida ka badan sanadka bilowgiisii qorshaha waxa la diyaariyay bay ahayd in degmooyinku ay ku tala galaan hadii roob yare ay dhacdo biyo dhaan qorshe inay u qabsadaan marka degmo walba waxay amar u haysatay in miisaaniyadooda 1 milyan oo kamid ah ay ugu tala galaan in hadhow wixii soo food saaray degdeg ah jawaab lagaga bixiyo marka taa laftirkeedu diyaar garowga ayay qayb ka ahayd ya Allah idmo gurmadahaana uu bilowday oo uu socdaa marka taa waxay noqonaysaa ficilkan iska xaasidnimada ah ee ku xumeynta ah shakhsiyaadku dad ma aragtay hadda muuqdo oo sidaas ma jiraan laakiin shakhsiyaad ka kooban ee wax ka qorqora arrimahan dhinaca iyagu ka arkaan waa dhinaca anagu aan ku tilmaamayna xaasidnimo iyo ma aragtay iyaga dareenkooda ah laakiin anagu shacabka deegaanka insha Allah abaartan ilaaha naga soo jabiyay marka koobaad oo ilaah baa raxmadiisa nagu filan tahay dawlad ahaana wixii waajibaadkooda inay waajibaadka naga waan aaminsanahay inay shacabku tabayno maanta macluul u dhiman insha Allah